qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan xaafadda Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa ayaa raaligelin ka bixiyay rabshado kooban oo ka dhacay xaafadaasi waana kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo ka hadlaya arrimahaasi maanta de wax leeyahay shaqo dhacday waxa shaqo ma dhinac weeyniyo dad la soo abaabulay wax weeyniyo deeyoom iyo qaad loo qaaday waxay anagu cuudeedii iyo kaarkayga siisan mayna qaadniyo farnoo yar intii wadada istaageen anagoo wareegayna oo ku kala maqan masalaha iyo beerta xoriyada ayaa afartaynana yarshideen dadkii u dabaaldegay xisbiga anagu kulmiyaanay siina cirif ilaa ka cirif ya Axmed Dhagax cirif ilaa ka cirif kulmiyaan waxay awal badeedar kulmiyahaynyo waxay mar badan maskax xisbi cusub qaado ma haynanu waxay kulmiyo horaan qurqursanay waxay ma soo fikirnay ma kala ma laqi karna mid kala wadanaya Muuse Bici waxaan kan baaq uga diraya cod dheer waxaan uga diraya gobolka in aanu afarno ee rutiin inteeda badan u eego imikada haduu soo mar roog cad oo dhiganaa ilaa iyo intuu ka galiyo balgubadle Ali Maxamed Xuseen Ali Wacaysab TV Hargeysa.